kulanti wacan oo wanaagsan kulligeenba akhyaartayna la socotay halkani waa Garaad TV qodobada aad xilligan ku daawan doontaan wararkeena waxaa kamid ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saameyn xooggan u yeelay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo wadamada caalamka oo tartan ugu jira xiriirka dawladda federaalka ee Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo soo jeediyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in uu dib u bilaabo wadahadaladii uu kula jiray dawladda dhexe ee Soomaaliya gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo loo doortay shakhsi aad ugu dhow Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble kadib doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo weerar afka ku qaaday madaxda maamul goboleedyada ee xubnaha ka dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo xiisada ka dhaxaloosan wadamada Ruushka iyo Mareykanka ee ku saabsan dalka Ukraine oo si xoogaysatay qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii Rabbiga weyne sidaasi naga ogolaadee diyaar garooba saaxiibayaal isku soo noqon haboon mar kale daawadayaal halkani waa Garaad TV xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka alle ee dusha ka saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aynu ku bilownaa saaxiibayaal sida aad horudhaca wararkeena ku daawateen siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya ayaa saameyn xooggan ku yeelatay caalamka sanadihii u dambeeyay taasi oo keentay in wadamada adduunku ay tartan u galaan xiriir ay la yeeshaan dawladda dhexe ee Soomaaliya ka dhex muuqashada fagaarayaasha caalamka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo si weyn hoos ugu dhacday wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa mar kale dib u soo laabatay si weyn loo dareemay sanadihii u dambeeyay sida ay aaminsan yihiin khubarada wax daraasaysa waxaana ay aaminsan yihiin khubarada warbixinada ka diyaariyay dib u soo labakaclaynta siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya inay ku timid juhdi xooggan oo ku bixiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddadii uu xafiiska joogay taasi oo ka mid ahaydna ballanqaadyadii uu sameeyay markii loo doortay madaxweynaha Soomaaliya diblomaasiyiin badan oo iskugu jira Soomaali iyo ajnabi ayaa isku raacsan in dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka soo baxday doorka firfircoonida ee siyaasadda arrimaha dibadda marka la eego tallaabooyinkii ay qaaday dawladdiisa ee keenay in ay Soomaaliya saameyn ku yeelato fagaaraha caalamka isla markaana ay noqoto wadan uu dal waliba daneeyo in uu xiriir dhow la yeesho halku-dhigyada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadda ay ka dhamaatay muddada xilhaynta ah ee dastuurku ogol yahay laakiinse ay ku xifaaleeyaan mucaaridku waxaa ka mid ah inuu dib u soo celiyay qabkii iyo sharaftii ay Soomaaliya ku lahayd caalamka taasi oo aan ahayn mid la dafiri karo isla markaana si weyn looga dareemay gobolka iyo dunida oo dhan dareenka khubarada daraasadda ku sameeyay arrimahani waxaa si weyn u soo jeetay tartanka ay wadamada caalamka oo u badan kuwa quwadaha waaweyn ay xilligani ugu jiraan inay xiriir dhow la yeeshaan dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana qaarkood ay qaadeen tallaabooyin ay ku ixtiraamayaan dawladda dhexe wixii ka dambeeyay markii ay burburtay dawladdii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay 1991 wixii ka dambeeyay Soomaaliya caalamka inta badan waxaa looga aqoonsaday wadan fashilmay isla markaana ku guul daraystay inuu xagsado dawladnimada hase yeeshee sanadihii u dambeeyay ayaad moodaa in wax weyn ay iska bedeleen tusaalahaasi caalamku u soo qaadanayay Soomaaliya maadaama ay dadka Soomaaliyeed si dhow la socdeen isla markaana ay ka wada dharagsan yihiin tallaabooyinka dhiiranaanta leh ee dawladda madaxweyne Farmaajo ay ka qaaday siyaasadda arrimaha dibadda
waxaynu eegaynaa imika tartanka ay wadamada caalamku ku doonayaan in ay ku soo dhawaadaan xukuumadda Muqdisho. maalin ka hor baarlamaanka dowladda Ingiriiska ayaa yeeshay dood la xiriiray aqoonsi buuxa oo dowladda Britain ay siiso Somaliland oo muddo 30 sano ah sheeganaysa inay tahay wadan ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale, hase yeeshee caalamka ka weyday aqoonsi buuxa. waxaana doodaasi baarlamaanka horgeeyay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska. daqiiqada ka hor intii aysan doodu bilaaban ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uu qadka telefoonka kula hadlay wasiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan arrimaha qaaradda Afrika, isagoo uga digay in Britain ay qaado tallaabo ay ku kala qaybinayso dadka Soomaaliyeed. dowladda Britain ayaana u hoggaansantay digniintaasi uga timid dowladda dhexe ee Soomaaliya, iyadoo baarlamaanku ay burburiyeen mooshinkii xildhibaanada qaar ay ku doonayeen in Britain ay aqoonsato Somaliland. wasiirka ayaana markii uu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya qoraal ay soo dhigtay barteeda waxay ku sheegtay in mowqifka Ingiriisku uu yahay mid aan isbedelin oo ah in Soomaaliya iyo Somaliland ay ka wada hadlaan mustaqbalkooda. dhanka kale Soomaaliya ayaa isku bedeshay saaxad ay ku dagaalamayaan wadamada ishaya ee qaliijka, kuwaasi oo dana istiraatiijiyadeed kale wadankani dhaca geeska Afrika. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdi Siciid Muuse ayaa teleefanka wada hadal kula yeeshay wasiiru dowlaha dowladda isku tagga Imaaraadka Carabta Sheekh Maktoum Al Nahyan. waxay ka wada hadleen hagaajinta xiriirka labada dhinac iyo muhiimadda ay labada dowladood u leedahay horumarinta xiriirka labageesoodka ah ee ka dhaxeeya. wadahadalkaasi oo ahaa mid uu dalbaday wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka isku tagga Imaaraadka Carabta ayaana dowladda Imaaraadku ay kaga dalbatay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya in la wanaajiyo xiriirka labada dal. Imaaraadka ayaa dhowrkii sano ee u dambeysay si weyn u baadigoobayay waddo uu ku soo celiyo xiriirka uu la leeyahay Soomaaliya ka gadaal markii dowladda madaxweyne Farmaajo ay ka cayrisay wadanka iyadoo lagu eedeeyay inay dalkaas u galayeen lacago si sharci darro ah loogu qabtay ayriboorka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho si Imaaraadku ugu burburiyo amniga Soomaaliya. Imaaraadka ayaana isku dayaya in albaabka Fahad iyo Farmaajo ay ka xireen 5 sano ka hor inuu dib u furo, isagoo ka faa'iideysanaya inta uu xafiiska joogo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dhawaan raali geliyay Imaaraadka lacagta looga qabtay garoonka Aadan Cadde bishii Abriil 2018, isagoo ballan qaaday in dib loogu celin doono lacagtaasi. hase yeeshee madaxweyne Farmaajo ayaa warqadu ka soo daba saaray ku amray in lacagtaasi laga bixin bangiga. Sacuudiga ayaa isaguna safiirkiisa cusub u soo diray magaalada Muqdisho, isagoo waraaqaha aqoonsiga uu ka gadoomay madaxweyne Farmaajo, waxaana xukuumadda Riyaad ay dib u furaysaa safaaradeedii Soomaaliya. Qatar ayaa horay u joogtay Soomaaliya oo labada dal uga saameyn badnayd muddadii madaxweyne Farmaajo uu joogay xafiiska, iyadoo la tilmaamay in labada wadan ay yeesheen iskaashi xooggan oo dhinacyo badan leh. dowladda Qatar waxay saameyn ku lahayd oo ku adkaatay labadii doorasho ee u dambeysay Soomaaliya, tii Xasan Sheekh Maxamuud ku soo baxay 2012 iyo tii madaxweyne Farmaajo 2017. si kastaba ha noqotee waxaa imika muuqanaysa inay xoogeysatay ama dib ugu soo laabatay saaxada caalamka siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, waxaana sidoo kale haatan codka Soomaaliya si weyn looga qadariyaa golayaasha qaramada midoobay sida golaha guud iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa kala hadlay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi arrimo la xiriira wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland oo muddooyinkii u dambeeyay hakada ku jiray ka gadaal markii sanadkii hore ay labada dhinac dalka Djibouti ku yeesheen kulamo ay qabaqabadooda wax ku lahayd dowladda wadanka Itoobiya. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo maalmo ka hor booqasho rasmiya ku tagay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ayaa la yeeshay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kulamo ay kaga wada hadleen xaaladda gobolka
xiriirka Somaliland iyo Ethiopia iyo sidoo kale wada hadaladii hakad ka galay ee u dhaxeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland. Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia ayaana talooyin la xiriira wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland waxa uu siiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sida laga soo xigtay xubno qayb ka ahaa wafdiga madaxweyne Biixi ee tagay dalka Ethiopia. xubnaha ay soo xigatay warbaahintu waxay sheegeen in ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu soo jeediyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in mustaqbalka Somaliland uu ku xiran yahay xukuumadda Muqdisho sida daraadeedna loo baahan yahay in mas'uuliyiinta Somaliland ay dardal galiyaan wada hadallada ay la leeyihiin dowladda dhexe. marka uu taladaasi u soo jeedinayay ra'iisul wasaaraha Ethiopia madaxweynaha Somaliland ayaa ahayd xilligii ay baarlamaanka Ingiriisku ka doodayeen in mooshin uu soo gudbiyay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddankaasi oo la xiriiray in dowladda UK ay dal madax bannaan u aqoonsato Somaliland. laakiinse baarlamaanka Britain ayaa gaashaanka ku dhiftay mooshinkaasi waxaana ay isku raaceen in aqoonsiga Somaliland uu ku xiran yahay xukuumadda Muqdisho isla markaana aysan iyagu u aqoonsanaynin dal gooniya. xilligaasi uu soo baxay go'aanka baarlamaanka Britain madaxweyne Muuse Biixi waxa uu ku sugnaa magaalada Addis Ababa iyadoo lagu guda jiray kulamada Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Somaliland waxaana Abiy Ahmed uu si cad ugu sheegay madaxweynaha Somaliland in mustaqbalka Somaliland haddii ay noqonayso dal madax bannaan iyo haddii ay dib ula midoobayso Soomaaliyaba uu ku xiran yahay mas'uuliyiinta Muqdisho oo go'aan iyagu qaata. laakiinse waxa uu ku booriyay madaxweyne Biixi in mas'uuliyiinta Somaliland looga baahan yahay inay qaadaan dariiqaasi isla markaana aysan joojin caqabadna ku noqon wada hadalka ay la yeelanayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya. madaxweyne Muuse Biixi ayaa sidoo kale u sheegay ra'iisul wasaaraha Ethiopia in wada hadaladii ugu dambeeyay labada dhinac uga bilowday dalka Djibouti inay caqabadi uga soo laabatay dhinaca Muqdisho laakiin dhankooda ay diyaar u ahaayeen mar waliba in la sii wada xaajoodyada ilaa la gaarayo heshiisyo rasmiya. Abiy Ahmed ayaa sidoo kale kala hadlay madaxweynaha Somaliland arrimo quseeya ammaanka labada dhinac iyo iskaashiga dhex maraya Somaliland iyo Ethiopia. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaana booqashadaasi dib uga laabtay waxaana uu tagay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. waa tahay aan ku siqa wararka ee xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee heer federaal ayaa doortay gudoomiye cusub kadib doorasho ka dhacday xerada teendhada Afisyoon ee magaalada Muqdisho. xilka gudoomiyaha ayaa waxaa isku soo taagay laba murashax oo kala ah Maxamed Cawil Warsame iyo murashaxa Mustaf Macalin Cali waxaana markii dambe tanaasulay murashaxa Mustaf. kadib xubnaha guddiga ayaa cod gacantaaga ugu codeeyay murashaxa Maxamed Cawil oo sidaasi ku noqday gudoomiyaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka. maxamed ayaa ku cusub guddiga wuxuuna ka mid yahay xubnihii uu Roble ku bedelay 7 xubnood ee uu horay uga saaray guddiga xalinta khilaafaadka. sidoo kale murashaxa laga guuleystay ayaa guddiga ka soo galay dhinaca Galmudug waxaana soo magacaabay Qoorqoor oo haatan aad ugu dhow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. tani ayaa ka dhigan inuu mar kale ra'iisul wasaaruhu hantiyay guddoonka guddiga xalinta khilaafaadka oo muhiim u ah doorashada haatan ka socota dalka waana guddiga kaliya ee go'aan ka gaarayo kuraasta ay cabashadu ka timaado hor doorashada amaba kadib marka la doorto kursigaasi. waa guushii labaad ee uu helay Roble kadib markii dhowaan xilka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban loo doortay Muuse Geele Yuusuf oo guddiga ka soo galay dhinaca Puntland kadib markii ay garab siiyeen Siciid Deni iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. arrintani ayaa ku soo aadaysa iyadoo haatan la sii ambaqaaday doorashada golaha shacabka oo la filayo in la soo gabagabeeyo 25 bisha Febraayo ee sanadkani 2022.
xiisada u dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kasoo bilaabatay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo Roble uu si degdeg ah shaqada uga caariyay 7 xubnood oo ku jiray gudoomiyihii guddigaasi ka gadaal markii lagu eedeeyay inay dhan u janjeersadeen lana safteen filla Soomaaliya. Roble ayaana durbadiiba ku bedelay 7 xubnood oo kale kuwa uu shaqada ka caariyay kuwaasi oo imika doortay gudoomiyaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka. guddigii hore ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka xubnaha la cayrshay iyo gudoomiyahooda ayaa dhowr kursi oo cabasho laga muujiyay go'aano ay ka soo saareen waxay ku tilmaameen kuwa saxa maadaama doorashooyinkaasi ay ahaayeen kuwa u janjeeray dhanka filada. waxaana arrintani ay ka dhigan tahay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble shirkii ugu dambeeyay ee golaha wada tashiga qaran ay ka soo raacday waxoogaa guula maadaama haatan xafiiskiisa laga xukumi doono guddiyada doorashooyinka ee wadanka. waa hagaag wararka muuqaal baahiyaha Garaad TV ayaa toos u dheehanaysa in ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan doorashada golaha shacabka Soomaaliya ee dib loo bilaabay kadib heshiiskii magaalada Muqdisho. Cumar Cabdirashiid ayaa marka hore walaac ka muujiyay hanaanka doorashada wuxuuna sheegay in weli kuraasta baarlamaanka lagu hayo boob sida uu hadalka u dhigay. ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa shaaciyay in boob ka socda uu ka awood badan yahay habraacyada doorashada ee la soo saaray taasina ay keentay in la xakameyn waayo. sidoo kale waxa uu weerar afka ku qaaday madaxda maamul goboleedyada oo tilmaamay in awood oo dhan loo gacan galiyay isla markaana ay iyagu maamulayaan ergooyinka halkii beelaha ay u madax banaanaan lahaayeen ayna soo saarayaan xildhibaano iyaga daacad u ah. sida bareerka ah ee gacmaha loola galay qabaa'ilada kuraastooda waxay keentay in la xakameyn waayo habraaca doorashada waxaa awood lagu siiyay dowlad goboleedyada in ay yeeshaan awoodda ergooyinka halkii beelaha ay u madax banaanaan lahaayeen. arrintaasi ayuuna ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ku tilmaamay mid xadgudub ku ah hanaanka doorashooyinka ee wadanka. Sharmaake oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in arrintani ay keeni karto in xoog lagula soo baxo xildhibaanka la rabo taasina ay tahay mid xilligani aan habboonayn. hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan doorashada golaha shacabka ay ka socoto dalkaasi dardar leh isla markaana qorshuhu yahay in la soo gabagabeeyo 25 Febraayo. si kastaba Soomaaliya ayaa ku daahday xaaladda adag ee kala guurka ah taasi oo ka dhalatay muranada hareeyay doorashooyinka oo dib u dhacay muddo 1 sano. waa tahay xiisada u dhaxaysa wadamada Mareykanka iyo Ruushka ee la xiriidha dalka Ukraine ayaa sii xoogaysatay iyadoo madaxweyne Joe Biden uu digniin culus u diray dhigiisa Ruushka Vladimir Putin. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu sheegay inuu u badinayo Ruushku inuu weerari doono Ukraine balse waxa uu ka digay inuu Mareykanku ka bixinayo jawaab adag tijaabada uu Ruushku tijaabinayo reer galbeedka. Biden waxa uu sheegay inuu Vladimir Putin kula kulmayo cunaqabatayn abidkii aan soo marin haddii uu Ukraine weerar toos ah ku qaado. dowladda Ukraine oo xiisadaasi xudun u ah dhankeeda waxay sheegtay Ruushka inuu cabsi gelin ku hayo iyadoo ku baaqday in la sameeyo dadaal kasta oo diblomaasiyadeed si dagaalka loo baajiyo. xiisada ka dhalatay ciidamada tirada badan ee Ruushku uu ku soo daabulaya xuduudda Ukraine ayaa cirka isku sii shareeday maalmihii u dambeeyay. hogaamiyaasha dalalka gaashaanbuurta NATO ayaa ka digaya waxay ku tilmaameen halista Ruushka ee ka dhanka Ukraine. shir jaraa'id uu ku xusayay sanad guuradii ka soo wareegatay markii uu xilka qabtay ayuu Joe Biden waxa uu ku hanjabay in haddii Vladimir Putin uu weerar ku qaaday Ukraine uu ku soo rogi doono cunaqabatayn aysan weligood mid la mid arkin. madaxweyne Biden ayaa intaasi ku daray in hogaamiyaasha gaashaanbuurta NATO ay ka midaysan yihiin baahida loo qabo inay tallaabo qaadaan haddii Ruushku uu weeraro dalka Ukraine.
waxay ku xirnaan doontaa sida ay wax u dhacaan, balse haddii ay dhab ahaantii sidaasi sameeyaan way adeegsadaan ciidamada ay xadka Ukraine soo dhoobeen, waxay noqon doontaa musiibo Ruushka ku timid. waa haddii ay isku dayaan in ay Ukraine qabsadaan. xulafada iyo saaxiibadeena waxay diyaar u yihiin inay qasaaro iyo waxyeelo la taaban karo u geystaan Ruushka iyo dhaqaalihiisaba. wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamkaba waa naga intaas. nabadgelyo.